waa markii iigu dambeysay ee aan bilaabay challenge noocan oo kale ah. Weligay ma bilaabi doono kan haddaan ku fail garoobana halkaas ayaan ku joojinayaa barashada luqadda Ingiriiska. Yacni maxaan saa u leeyahay billions times ama kumanaan jeer oo hore ayaa bilaabay barashada luqadda Ingiriiska anoo kolba naftayda challenge la gelay. Laakiin maxay ku taalaa waan ku fail garoobay, waan ku fail garoobay, waan ku fail garoobay tiro ma laha. I believe it 100% waan hubaa inaad dadkaas kale ka mid tahay. Aniga camalina aad tahay kumanaan jeer aad bilowday challenge. Maanta challenge ugu dambeeyay ayaa bilaabay ee luqadda barashada ee ku saabsan barashada Ingiriiska. Haddaad doonayso inaad challenge-kayga la qayb gasho oo igala qayb qaadato, ila soo xiriir. Nambarkayga halkaa ka muuqanaya amba Instagram-ka labada mid waad igala soo xiriiri kartaa. Marka halkan waxaan kula wadaagayaa qorshahayga, sababta video-gan u sameeyay, sababtan YouTube channel-kan u sameeyay, sababta aan video-gan u soo barbaranayo. Sida muuqaalka hordhiciisa kusoo aragteen challenge-gaas ayaan bilaabayaa. Challenge-gaas wuxuu soconayaa 30 cisho. 30 cisho luqadda Ingiriiska ayaan doonayaa inaan clear ka soo baxo. Yacni intaan awoodo inaan baran karo inaan barto. Challenge-ga haddaan galo dib u joojin maayo. Haddaan joojiyo challenge-gaana dib dambe challenge ugu bilaabi maayo. Haddaad doonayso laga mooto sidaan kuu sheegay, nambarada halkan baad igala soo xiriiraysaa ama Instagram-kayga. Waxyaabaha muhiimka ah aan idiin sheegay waxaa ka mid ah challenge-ga inaan ku mid yahay. Challenge-ga yacni wuxuu la dhaqmayaa sidii uu yahay last chance. Chance-kii ugu dambeeyay ee aynu haysanay, kii ugu dambeeyay in luqadda Ingiriiska ku baraynay. Waxyaabo muhiim ah, qodobo muhiim ah jira. Horta maalin walba 2 saacadood oo ka mid ah waa inaad challenge-ga gelisaa si aad challenge-ga u fulino oo aan ugu guuleysano. Marka muuqaalaan soo diyaarinaya, muuqaalaan ka soo sameynaya, casharradan soo barto, YouTube-kan soo dhigaya ama TikTok-ka. Yacni sidaa ula socotaan heerka isbeddelkayga waxbarashadeedu marayso, halka English-teedu marayso, markii hore siday ahayd hadda siday noqotay, isbeddelka i dhexeeya, waxyaabahaasoo midhan. Adiga laftirkaaga dad kala mid noqonayso, group WhatsApp ah inoo sameynaya ku wada barano, waad la soo xiriiri kartaa. Groupka WhatsApp-kan kugu daraya casharrada aan anigu barto, waxyaabahan soo search gareeyo, yacni grammar-kaan maalintaa barto amba phrasal verbs-ka ama vocabulary-ga ama wax kasta oo ku saabsan barashada Ingiriiska oo aan markaa barto idinkana waad la wadaagay groupkaas soo dhigaya. Groupkaas wax ku wada baranaa. Yacni iskaashi ahaan self learning iskaashi ayaan samaysanaynaa. Waxbarasho halkaas ka wada wadanaynaa. Waxaan idhahdaa maalin dheeri muuqaal ayaan soo dhigayaa. Natiijada halkay marayso, 30 cisho, isbeddelkayga iyo xaaladayda halkay marayso iyo ardayda waxay la baranaysa. Adigu progress-ka iyo natiijada aan gaarayno si live ah ayaa loola soconayaa. Si live ah ayaa loola soconayaa. Haddaan ku fail garoobo dib dambe u bilaabi maayo. Halkaasaan ku joojinayaa barashada Ingiriiska. Marka kan haddaan bilaabo waxaan ku dadaalayaa inaan sameeyo do or die. Do or die. Samee ama barta ku jooji barashada Ingiriiska. Labadaa wax ka dhexeeya ma jiri doonaan. Marka challenge-gaasaan ku fikiray inaan bilaabo waana bilaabaya. Pretoria ayuuna bilaabmayaa. Haddaad doonayso inaad ka mid noqoto sidaan kuu sheegay marka horeba waad ila soo xiriiri kartaa, waad ka qayb geli kartaa. WhatsApp-kaad igala soo xiriiri kartaa. Waxyaabaha muhiimka ah ee challenge-ga focus garanayo wax weeyaan. Horta inaan vocabulary badan barto, phrasal verbs fara badan inaan barto, speaking-kayga inaan hagaajiyo, reading-kayga inaan horumariyo. Yacni 4 qaybood ee luqadda Ingiriiska inaan meel iska saaro. 3 bilood ee uu soconayo challenge-gaasi anoo top level ah, anoo waxyaabo badan garanaya inuu challenge-gaas dhameeyo. Kadibna aan idhaahdo finally I did it. Ugu dambeyn waan sameeyay. Marka waa challenge weyn, waa risk weyn oo aan naftayda la gelayo. Sababtoo ah kan haddaan ku fail garoobo that means English barashadeeda halkaasaan ku joojiyo. Waa sababta aan u adkaynayo ee naftayda ugu adkaynayo ee aan muuqaalada u duubayo ee natiijadayda la socodsiinayo. Marka sababta aan social media u keenay challenge-gan idinkayda la wadaagayo waxa weeyaan in horta aniga dhiirigelin ii noqoto oo marka maalin dheeli aan ku fikirayo muuqaalka wax baro. Day 1 waa maanta, day 2, day 3, day 3 maalinta kastana xilmad gaaraysaa. Maalinta kastana inta kaaga haray halkaa dhiirigelin baad ka helaysaa. Sidoo kale saaxiibo adiga kula mid oo luqadda baranaya ayaa saaxiibaysaan oo challenge-ga wada galinaysaan oo isku dhiirigelinaysaan, wax wada baranaysaan, wax wada faa'iidaysaan. At least markaad keligaa baranayso ee aad offline-ka tahay way ka fursad badan tahay markaad online-ka wax ku dhex baranayso. Yacni markaad dad bulsho wax la dhex marayso. Sababtoo ah inaad kula practice garaysid ma waayeysid, casharrada kula diyaarsan ma waayeysid, wax kuu faa'iidaysan ma waayeysid. Waxyaabo badan baad online-ka ka faa'iidaysaa. Idinkana waan kula talinayaa online-ka ku soo biro, online-ka wax ku barta, TikTok-ka samaysta. Marka unkii followers gaadhaan TikTok live ka soo gala sidaan anigu hadda sameeyo. TikTok-kayga live baan ka soo galaa habeenkii luqadda Ingiriiska ayaan ku practice gareeyaa. Haddaad sidaas kala doonayso waad samayn kartaa. Fursado badan ayaa ka jira online-ka oo barashada Ingiriiska. Marka sidaan waad kula talin lahaa. Challenge-gan wuu biloobmayaa, wuuna soconayaa, wuuna dhamaanayaa. Ilaahay idamkii insha Allah wuxuu noqonayaa challenge-ga iigu adkaayaan gala wuxuuna noqon doonaa kii iigu faa'iidada badnaa. Sababtaa challenge-yo hore badan waan galay, waan ku fail garoobay. Laakiin tan waxaan rajaynayaa inaanan ku fail garoobin. Ilaahay idamkii insha Allah ilaahayna waan tala saaran doonaa kumana fail garoobi doono.
adiguna saas kale aan ku rajeynayaa inaad ku failgaroobin kumanaanka challenge aan kusoo failgaroobnay inaanu ka noqon kii aynu ku afixi lahayn ee luqadda ku baran lahayn inuu noqdo ayaan rajeynayaa waxyaabo badan oo aan isleeyahay challenge-ga gudihiisa ay ku qabataana insha allah haddaad diyaarto laga soo xiriiri karto waad la soo xiriiri kartaa whatsapp-keeda laga soo xiriirsaa group baa inoo sameynaya halkaas aan casharada soo dhigdhigaynaa waxyaabo badan bay kala faa'iidaysanaynaa practice-keeda sameynaynaa filimada amba waxyaabaha listening-ka groupkaas soo dhex dhigaya groupkaas in ku wada listen gareynaynaa adigu everything oo luqadda ku saabsan anaa idin hagaaya sidaan anigu processka aan baranayo processka aan raacayo mid lamida ay raacaysaa waada tallaabo iyo wax kasta qaadaya la qaado aad igu xubnaato soddonkaa cisho aad isha ku hayso YouTube channel-kayga iyo TikTok-kayga insha allah weyn wada faa'iidayna labadiinaba adna waad faa'iidaysaa adna waan faa'iidaya wax weyn wada baranaya marka intaasaan jeclaystay inaan idinla wadaago muuqaalku inuu dheeraada ma rabin xoogaa hadda inuu dheer yahay baan malaynaya markaa challenge-ga saas ku bilaabmay waa official beritoole ayuu biloomaya ciddii chance u yeelatay inay ka faa'iidaysato way ka faa'iidaysan kartaa ciddii kalena falilah alxamdulillah insha allah waxaan rajeynaynaa inay challenge-yo kale ka qayb gasho midkan ka faa'iido badan inuu soo baxo soo kani kuma ekaanayo kanoo keliya bilo badan buu noqonaya 3 bilood baan sidaan sheegay buu noqonaya laakiin marka hore 3 bilood mar muu wada gelayo marka hore 30 ayaan gelaya 30 markaan dhameeyo haddana 30 cisho kale 30 markaan dhameeyo ku xiga marka 30 ugu horeeya dad ka mid noqon wada nasiibka ku dar waayo 30 xiga ee English-tooda beginner markii ka tagto intermediate-ka sii socoto ayaad ka soo qayb galin doontaa marka sidaas ula socdo ila soo xiriira challenge-ga ee wada gal aan wax wada barano ay wax wada faa'iidno YouTube-kaygana like YouTube-kayga maxaa la subscribe saaro ku xubnow si muuqaalo badan iyo horumarkayga aad la socoto meeshaan maalin walba galaayo adigana aan kaaga la socdo marka thanks maalin waxaan bay dirajeenaya khayr bay dirajeenaya insha allah winoo bilowmi doona I can wait maalinta koobaad iyo maalinta soddonaad waan sugi kar lahay sida noqon doonta luqadeeda sida noqon doonta maxay isbedeli doona difference-ga dhexin doona muxuu noqon doona waxyaabo badan ma sugi kar lahay marka insha allah waan gaaraynaa waa maasantii dhammaantiin muuqaalku inta sukeeyay aad u maasantihiin khayr baa dirajeenaya ila soo xiriira dadkii doonayna channel-ka ka qayb galow iminka ayay fursad u furan tahay hadda ayay furan tahay soddonka cid ka dambayso waan aqbalaya ma jirto so thanks aad u maasantihiin muuqaalka ilaahay like saartaan asxaabta noo shaqeysaan aad baan salaamay saaxiibay